magaalada aan isla deganahay oo dhowr 6-7 guriga igu yimid oo reer Jubbaland oo reer Kismaayo ah hooyo ilaahay ka cabso magaalada ha weerarin halkee ka maqashaan dhahay markaas waxay tiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo qoray waa maqashaan Soomaan ninkan waa ku xanaaqay waxaan markaas moogahay bil ayuu xafiiskayga yimid sawir ila galay qurux badan nin oday waa soo dhaweystay muxuu waxaan kugu sameeyanahay isdhahay ma yaraysanin madaxweyne Farmaajo u tagay waxaan dhahay Kismaayo la weeraraya nacam waa weerarayna u dhaanigi saaxiibkay waxaan dhahay haddii Kismaayo la weeraro madaxweynuhu idaacadan tagaya aniga dhiig daadanay diyaar u miyi madaxda maanta waxay ku faanaysaa in Kismaayo la weeraro in geda laga weeraro isla ciyaartii hore iyo filimka hore lagu soo celiyo ma dhamaatada ahay marka Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa naga horeeya waxaan leeyahay waa mahadsantahay shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madashaan waxaan nahay odayaashiini waxaan u joognaa maslaxada dalka iyo badbaadada aan midnimo muujino shacabku idinka idin la hadlaya wax kasta oo na kala fogeynaya koox gaar ah wadato kana hor imaanaya danta guud aan diidno ilaahay ka cabsada wax kasta waa ognahay shalay maadan dhalanin wadankan waxa uu soo maray waad ogtihiin wax kasto beel idin kugu sheegayo ama qabiil idin kugu beer la xawsanayo ka hortaga ha ogolaanina dana shakhsiyaysan kuwa qabyaaladaysan ama kooxaysan aan kor u qaadno doonisteena oo ha ahaato mid qaran annaga waxaan naga filanaysaan tiimkeenan waayeelnimo damqasho tanaasul adkaysi sidoo kale ku kalsoonaada in aynaan marna aqbalaynin in dawladnimada curdunka ah la dumiyo ama dib loo celiyo aniga ka roob la'aan sidaan shalay u istaagnaa oo wadankan iyo dadkiisa iyo shacabka ugu naxay diyaar ayaan u ahay una u naxo madaxweyne xasan sheekh hadduu diyaar u yahay inuu gobol dhigana diyaar ayaan u nahay hadduu dhaho halay saacido diyaar ayaan u ahay inaan saacido aniga iyo tiimkeeba oo aan hadduu ogolaado aniga isma dhahaye madaxweyne xasan sheekh taqaanay waa joogaa kulli tabaadinkana waad aragteen laakiin ninkaas odayga ahaa madaxweynaha hadda qaranka waxaan rajaynayaa inuu kubadda dhulka dhigo uu ogolaado in la wada tashto cidna dalkan ma xadi karto meelna ma geysan karto anigana igu tashta ninkaas odayga sida Cabdi Qaydiid uu sheegay faataxada haddii loo maro waa ii fududahay inaan soo saaro oo aan soo wado beesha caalamka ama saaxiibada caalamka mar kale waan u mahadcelinayaa doorkooda waxaan leeyahay Soomaaliya weli way idin baahan tahay dad badan aan arkay dhahayo beesha lixaad aan ugu jirto beesha hebel aan ugu jirto walaalayaalow waas aamin la'anahay waa is indha buuxin la'anahay waa ismaqli la'anahay in la soo canaanta mahane xigmad kale ma jirto Soomaan hadda waxa laga yaabaa xasan markaan annaga qaylino iyo markay beesha caalamka hadasho inuu kala hurdo duwan tahay marka aan is indha buuxino aan ismaqalno dad walaalaan nahay aan is dhageysano marka waxaan leeyahay warka waa ku dheeraaday odayaasha ayga dambeeya Soomaaliya ha noolaato haddii waxaan la bixin waayna ninka kana bixinayo waana mahadsantiin magaalada aan isla deganahay oo dhowr 6-7 guriga igu yimid oo reer Jubbaland oo reer Kismaayo ah hooyo ilaahay ka cabso magaalada ha weerarin halkee ka maqashaan dhahay markaas waxay tiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur soo qoray waa maqashaan Soomaan ninkan waa ku xanaaqay waxaan markaas moogahay bil ayuu xafiiskayga yimid
sawir ila galay qurux badan nin odaya waa soo dhaweystay muxuu waxaan kugu sameeyanahay isdhahay ma yaraysanin madaxweyne farmaajo aan u tagay waxaan dhahay Kismaayo la weerarayaa nacam waa weerarayna u dhaanigi saaxiibkay waxaan dhahay haddii Kismaayo la weeraro madaxweynuhu idaacadan tagayaa aniga dhiig daadanaya diyaar u miyi madaxda maanta waxay ku faanaysaa in Kismaayo la weeraro in geda laga weeraro isla ciyaartii hore iyo filimka hore lagu soo celiyo ma dhamaatada ahay marka Cabdiraxmaan Cabshakuur waa naga horeeyaa waxaan leeyahay waa mahadsantahay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madashaan waxaan nahay odayaashiinii waxaan u joognaa maslaxada dalka iyo badbaadada aan midnimo muujino shacabku idinka idin la hadlaya wax kasta oo na kala fogeynaya koox gaar ah wadato kana hor imaanaya danta guud aan diidno ilaahay ka cabsada wax kasta waa ognahay shalay maadan dhalanin wadankan waxa uu soo maray waad ogtihiin wax kasta beel idin kugu sheegayo ama qabiil idin kugu beer la xawsanayo ka hortaga ha ogolaanina dana shakhsiyaysan kuwa qabyaaladaysan ama kooxaysan aan kor u qaadno doonisteena oo ha ahaato mid qaran annaga waxaan naga filanaysaan tiimkeenan waayeelnimo damqasho tanaasul adkaysi sidoo kale ku kalsoonaada in aynaan marna aqbalaynin in dawladnimada curdunka ah la dumiyo ama dib loo celiyo aniga ka roob la'aan sidaan shalay u istaagnaa oo wadankan iyo dadkiisa iyo shacabka ugu naxay diyaar ayaan u ahay una u naxo madaxweyne xasan sheekh hadduu diyaar u yahay inuu gobol dhigana diyaar ayaan u nahay hadduu dhaho halay saacido diyaar ayaan u ahay inaan saacido aniga iyo tiimkeeba oo aan hadduu ogolaado aniga isma dhahaye madaxweyne xasan sheekh aad taqaanay waa joogaa كل تبدين كان واد أركتين لكن نكاس أضيق أها مدحوينها هذا قرنك وحان رجينا يا إنه كبدر دول كديجو وقلاده إلا وذا تشتو عندنا دل كان ما حد كرتو ميلنا مجيء سكرتو أنا جانا يقول تشتا نكاس أضيق سيدا عبد قيديد وشاقي فاتح هذا هدي الله مرة ويفضل دينا صار وأن صور بيش عالم كام صاحب عالمك markale waa uu mahad celinayaa doorkooda waxaan leeyahay Soomaaliya wali way idin baahantahay dad badan aan arkay dhahayo beesha lixaad aan ugu jirto beesha hebel aan ugu jirto walaalayaalow waas aamin illa annahay waa is indha buuxin la annahay waa is maqli la annahay in la soo canaanta mahane xigmad kale ma jirto Soomahan hadda waxa laga yaabaa Xasan markaan annaga qaylino iyo markay beesha caalamka hadasho inuu kala hurdo duwan tahay marka aan isna indha buuxino aan ismaqalno dad walaalaan nahay aan is dhageysano marka waxaan leeyahay warka waa ku dheeraaday odayaasha ayga dambeeya Soomaaliya ha noolaato haddii waxaan la bixin waayna ninka kana bixinayo waana mahadsantiin